wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa maanta hortagay guddida dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda ee golaha wakiilada Somaliland kulankani oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo waxyaabaha ay kaga wada hadleen caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah saaka waxaanu la kulannay guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka kulankaas wuxuu qayb ka yahay amba ka ahaa geedi socodka diyaarinta miisaaniyadda 2023 nidaamka maamul wanaagga maaliyadda ayaa wuxuu farayaa inaanu xog la qaybsano baarlamaanka xilligan oo kale aanu kaga hadlayno xaaladda dhaqaale halkay marayso iyo xaggay u socoto iyo saameynta miisaaniyadda ku yeelan karo waxa kulan aad u wanaagsan buu si fiican oo noogu qabsoomay alxamdulillah assalaamu calaykum maxamed muuse cabdilaahi maxmed jeesto gobonimo TV hargeysa